waxaan marka hore ilaahay uga mahadnaqayaa inaynu munaasabadan isugu keenay inagoo nabad ah ina suuro geliyay inaan maanta baarlamaanka Soomaaliyeed hor istaago aniga oo idin weydiisanaya inaad codkiina siisaan. waxaan ahay Fawziyad Yuusuf Xajaadan oo dalkan ka soo qabatay darajooyin waaweyn. muddadii aan xilka hayayna guulo fara badan keentay sidaad la wada socotaan. anoo 14 bilood oo keli ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda ahaa. waxaan dalkan gaarsiiyay meelo hor leh oo la gaarin intii burburku dhacay. anigoo si hufan aan hagardaamo iyo dhibaataba aan ka ilaaliyay soona celiyay hankii iyo haybaddii Soomaaliyeed. waxaan muddo dheer ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda, jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo hay'ado waaweyn oo kale. waxaan hore u soo noqday asaase madax iyo macallin jaamacadeed. xagga waxbarashada waxaan haystaa master's degree oo public policy iyo international relations oo aan ka qaatay jaamacadda Johns Hopkins ee weyn ee Mareykanka iyo honorary PhD. waxaan halkan ku soo lifaaqay taariikh nololeedkayga oo kooban. waxaan haddaba maanta idinla hortaagnay inaan Soomaaliya quruxdeedii iyo horumarkeedii aan gacan ka geysto. waxaan rajaynayaa inaad gacan iga siisaan. muddo 40 sano ah dalkani wuxuu ku jiray dagaallo sokeeyo iyo kuwa kaleba oo ragaadiyay. adduunkuna wuu soo wada maray dagaallo sokeeye, horaana looga socdaa. waxaan qabaa inaynan dib u eegin dhibaatooyinkii hore u dhacay ee aynu hore u soconno. inkastoo aynu dowladnimo dhaawacan oo qabyaalad iyo musuqmaasuq ragaadiyaan haysanno, haddana weli waynu jirnaa, waynuna sixi karnaa qaladaadka jira. Soomaaliya waxay ahayd dowladaha Afrika ugu adag, hore umarkana meel taariikhi ah ka gaadhay hadday tahay tacliin, caafimaad, warshadayn, shaqaalayn iyo amni intaba. hase yeeshee waxaa ragaadiyay dagaallo sokeeye ka sokow dowladnimo xumo. waxaynu haysanaa dal qani ah oo mandaqad istiraatiijiga ku yaal. waa dalka ilaah ku manaystay wax kasta oo bani'aadamku u baahan yahay. waxaynu haysanaa xeebta Afrika u dheer iyo dhul baaxad leh oo beero, baatrool iyo gaas, macdano, webiyo, khayraad badeed iyo mid bariba leh. waxaan arkaa Soomaaliya oo noqon karta goob nabadeed iyo horumar adduunku u soo shaqo tago. waxaa haddaba igu kalifay inaan wakhtigan ku fakaro inaan mindida daabkeeda tiigsado. waxa weeye dayaca iyo dhibaatada ku raagtay dalkeenna ee ragaadiyey muddadaas dheer. waxaa igu kalifay markaan arko boqolaalka kun ee jaamacadaha ka baxay ama dhammaystay wiilal iyo gabdhaba oo shaqo la'aan ah, qabanayana howlo dantu ku kaliftay oo aan u qalmin halkay dalkooda dibdhiskiisa ka qayb qaadan lahaayeen. markaan arko hooyo Soomaaliyeed oo iyadoo wejiga qarsanaysa lacag yar gacanta ku qaadanaysa, hase yeeshee ka khajilaysa xaaladda ay ku sugan tahay. markaan soo arkay dhibaatada qaxootiga haysata dabadda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee jeelasha adduunka ka buuxda. markaan arko dhalinyaro Soomaaliyeed oo hub la isugu dhiibay oo isdhamaystiraysa. markaan arko halka qayrkeen gaadhay iyo horumarka ay dowladaha inala midka ahaa ay ku tartamayaan, iyagoon haysan khayraadka iyo badda aynu haysanno. waxaan gartay in muwaadiniinta dayowday ay u baahan yihiin in rajo loo abuuro, lana dareensiiyo qiimaha iyo qaniimadda dalkeennu leeyahay. taasina waxay ku xidhan tahay isxilqaan iyo dowlad wanaag. taariikhdii hore ee dalkeennu waa mid aad u fac weyn oo qurux badan, laguna faani karo. taariikhyahano badanna ay wax ka qoreen. sidaas oo ay tahay haddana waxaa maanta la garan la'yahay halka wax ka qaldan yihiin. aafada dalkeenna ku habsatay waa dagaallo aan dhammaad lahayn, kala qaybsanaan, qabyaalad, qaraxyo, qax iyo qaxootinimo, barakac iyo weliba abaaro iyo fatahaado joogto ah.
sababna ay u yihiin dabcan u yihiin mid bini aadam iyo mid cimilada adduunka ee isbedbedelaysaa keentay. haddaba ma ka bixi karnaa? haa, waynu ka bixi karnaa. mudanayaal iyo marwooyin, maadaama aan arkay baahiyahaas kala duwan ee dalkeenna iyo dadkeenna saameeyey, waxay ila noqotay inaan ahay qof wax ka qaban kara oo ka dhabayn kara kor u qaadista iyo adkaynta jiritaanka iyo horumarka Soomaaliya. dalkeennu wuxuu u baahan yahay oo keli ah nabad waarta, cadaalad, horumar dhaqaale iyo in qof waliba wuxuu yaqaano loo dhiibo meritocracy waxa loo yaqaano. sidaa awgeed waa in si cilmiyeysan loogu qorsheeyaa loona dejiyaa istaraatiijiyad salka u dhigta nabadda iyo dhaqaalaha oo seeska u adkaysa hiigsi horumarineed. Soomaaliya waxay u baahan tahay rag iyo haween daacad u ah, aragti fog, kana midho dhaliya qorshayaasha iyo istaraatiijiyada la dejiyey, hadday tahay arrimaha gudaha iyo amniga iyo hadday tahay arrimaha dibaddaba. qodobada soo socda waa saldhigga qorshahayga dheer iyo saldhigga howlgalka operation plan iyo wadooyinka iyo wadiiqooyinka lagu gaari lahaa dowladnimo taama, nabad waarta iyo mashaariic horumar leh oo maslaxad iyo dan u ah dhalinyarada shaqo la'aanta ah iyo danyarta iyo masaakiinta. iyadoo aan ku fulin doono maamulka iyo howlgalladayda la tashi, wada tashi, dhegaysi iyo ka baaraandeg sida howluhu u kala socda u mudan yihiin, waxaan haddii alla guushaysiiyo aan fulin doonaa arrimaha soo socda iyagoo faahfaahintooda ay ku taallo manifestada ama qoraalka qorshaha lagu howlgeli doono. waxaa u horreeya ilaalinta diinta islaamka iyo shuruucda dalka. waxaa iyana hortabinta koowaad ah dowladda aan dhisi doono oo ay ka go'an tahay in dastuurka dalka la dhammaystiro si loo helo heshiis bulsho oo dhammaystiran 100 cisho u horreeya. dowladda aan dhisi doonaa waa inay noqoto mid u hoggaansan dastuurka dalka. waa in la helo dowlad mas-uuliyadda shacabkeeda qaada oo laga wada qayb galo oo noqota mid qof waliba aqoontiisa iyo khibraddiisa lagu tixgeliyo. waxaa hortabin kale ah dib u heshiisiin dhab ah oo dalkoo dhan ka dhaca. waa in la helaa nabadgelyo iyo xasilooni siyaasadeed. haddaan nabad la helin, cadaaladi ma jirto. waxaa horumar iyo maalgelinba la heli karaa marka nabad la helo oo dalka kalsooni loo abuuro. waa in nidaamka 4.5 laga saaraa. nidaamkaasi waa nidaamka hagardaamada, xasilooni darrada iyo horumar la'aanta dalka ku haya. waa in dadka dagaaladu saameeyeen loo sameeyaa barnaamijyada tiraayo bixinta. waxaan awood saari doonaa kor u qaadista iyo tayada tacliinta iyo caafimaadka oo ah laf-dhabarta horumar kasta. awoodna waa in la saaro kobcinta maskaxda da'yarta iyo aqoontooda. waxaan ballan qaadayaa inaan waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aan ah aan ka hirgeliyo dalkoo dhan muddo gaaban. hirgelinta sarraynta sharciga iyo xuquuqda aadanaha waa rukun muhiim ah oo hortobinaha ka mid ah. tayeynta ciidamada qalabka sida, ilaalinta xuquuqdooda iyo soo celinta haybaddii ay lahaayeen waa geedka go'an. la dagaalanka dembiyada iyo xadgudubyada, horumarinta kaabayaasha dhaqaale iyo la dagaalanka fakhriga oo ay ugu horreeyaan kor u qaadista shaqo abuurka, warshadaynta iyo maalgelinta. waa in la helaa tamar jaban, hadday tahay ta qorraxda iyo hadday tahay ta dabayshaba. tamar la'aan ganacsiga iyo warshadayntuba ma hana qaadaan. deegaanka ama environmentka waa hortulinta ugu muhiimsan, waa jiritaanka iyo nolosha dadkeenna, khaasatan reer miyiga ama reer guuraaga iyo beeralaydaba. waxaanu casriyeyn doonaa nidaamka waraabka, beeraha iyo dhaqashada xoolaha intaba. waxaanu go'aan adag ka soo saari doonaa xaalufinta deegaanka iyo sumaynta badaheena.
waxaan xoogga saari doonaa horumarinta kalluumaysiga dalkeenna. waxaa hortabin kala ah dibudhiska dalka, dekadihiisa, dariiqyadiisa iyo madaaradiisa si maalgelinta iyo ganacsiguba ay hore ugu maraan. waxaa dalka laga salbuurin doonaa musuqmaasuqa iyo dhaca hantida qaranka. waa in la sugaa saami qaybsiga khayraadka dalka oo heshiis lagu yahay. gaarsiinta awoodda dowladnimo ee gobollada ilaa heer tuulo waa geedka go'an si dadku ay aayahooda uga tashadaan. horumarinta haweenka iyo hablaha yaryar, dalku wuxuu u baahan yahay in haweenku ay dibudhiska dalka ka qayb qaataan. hirgelinta adkaynta xuquuqda carruurta yaryar iyo dhammaan baahiyahooda waan ballan qaadayaa. hore umarinta awoodsiinta dhalinyarada oo ah mustaqbalka iyo xoogga dalka waa hortubin kale. haddaan xoogaa lay dhegaysto xoogaa waa la fahmi lahaa waxaan ka hadlayo. mudanayaal iyo marwooyin, soo celinta haybaddii hankii Soomaaliyeed waa muhiim. arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah waa lafdhabarta horumarka dal kasta. sidaa awgeed waa lagama maarmaan in aad loo adkeeyo kobcinta iyo xiriirka dowladaha caalamka, hadday yihiin kuwa jaarka iyo gobolkaba iyo hadday yihiin kuwa kaleba. safaaradaha dalkeenna ee jooga dibadaha waa in la tayeeyaa. haddii fursadda aanu helno, cilaaqaadka arrimaha dibadda waddanku wuxuu noqon doonaa heerka ugu sarreeya. mudanayaal iyo marwooye, waxaan hubaa haddii aan ku guulaysto inay Soomaaliya ka kici doonto dambaska, duuli doonto oo doorkeedii dowladnimo soo ceshan doonto. haweenka Soomaaliyeed waxay leeyihiin taariikh fog oo gobonnimo doon ah. hase yeeshee taariikhdaas muhiimka ah lama qorin oo lagama samayn dhigaal ama qoraallo ay jiilalka dambe ka faa'iidaystaan ama kaga daydaan. waxaa maanta suuro gashay taariikh cusub oo inoo dhigantay oo weligeed la xusi doono. jiilalka dhalinyarada haweenka ah ee halkan fadhiya iyo inta ku hamiyeysa inay dalkooda maqaan sare ka gaadhaan oo ay dadkooda wax u qabtaan, waxaa u timi fursad dahabi ah. waxaana habboon in maanta aad codkiina ku muujisaan. waxaa suuro gashay in markii ugu horreysay in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo haweena la helo. aakhirkii cadaalad baa timi. waxaa iyana muhiim ah inaynu dalkeenna iyo dunidaba tusno in Soomaaliya oo muddo dheer dagaallo ragaadiyeen ay aakhirkii goosatay inay nabad, xasilooni siyaasadeed iyo horumar ay dooratay oo dagaal dhiig daata iyo dabargoynta da'yarta Soomaaliyeed ay ka guurtay. xildhibaanada iyo senatarada labada aqal ee golaha fadhiya ee ragga ah, waxaan kula dardaarmayaa Soomaaliya halka ay maanta taallo waxaa dhigay iska horimaadyo iyo dhaqan soo jireen ah oo ku salaysan qab qabiil iyo aano. waxaa la soo gaadhay wakhtigii dalkeennii oo halis ku jiro oo loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo wixii qaldamay. waxaa la soo gaadhay wakhtigii la garwaaqsan lahaa in shimbiri aanay hal baal ku duuli karin. dalkani dambas ayuu dhex yaallaa, waxaana loo baahan yahay in shimbirtaas dambaska ka dhex duusho. haweenka iyo ragguna waa labadaas baal. waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaad maanta codkiinna dalka nabadgelyadiisa iyo danta guud aad daxiyad uga dhigtaan oo aad codkiinna aad igu taageertaan, anigoo huba inaan muddo gaaban ku soo dabaali karo nabad waarta, xasilooni iyo horumar degdega. Soomaaliya toosoo isku tiirsada. wabilaahi